دريم قال بهالكاس كسر درس دريم قال سوق reerkii kale hoos bay joogaan waa joogaan xalim caawa dhan meeshay joogtay diyaar bay ahayd marka laakiin waa tad hawl kala gashay marka aniga xalimo aqoon uma lihi gaara habla ganacsata ah oo reer UK baa igu soo xidhay oo ila raadiyay habareer waxay igu tiraa habareer baan ku ahay marka saasaan de maadaama ay xagga habla kala gama mareen xalimo soo dhawow marka xalimay soo dhawow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ظاهر وانكو سلامي. وكا قاعد. بقرك الصوماليين. وكا قاعد بقولت أفا سو دو. محكمة كو سو دو. أنا دروان دو هاي الحمد لله إلهي مهدي واي وانكو حمي هرتي سوري أبن دويد أنا قو حنوصنا يا محمد إيسان بان أنا تلفك السيلين قلي أنا وهران وسيحدا يادي سو وعدي أرتو وانكو فرح سنة ينا دي سو وعدو أنا مكيلا هذا شنو وكون فرح سنة ما دام أمد الصوماليات وحدو قبنا يسان كون قناع سنة أنا كنا فرح سنة هاي وحي أنا قاعد يبي قشة جانا يا أما أنا جاي كاسو دعوينا إن شاء الله وحنرجيني إن الساعة دالة لبضا يدا بعد نوجد هديسو ويا قارد على سوق قارد كنا لك هنا محمد داود أبو قارد هكذا سوق وانا يا خالد وهو يدا ويرو إمو سوق أنا مقليسو خالدو إغلشونا واكو سلامين هذا معن سو دwow مسوي دكتي هاي محمد داود waa jooga ka qaaday wala waan ku salaam mar reewad maqli wada dhammaan kuma ana maqlin kuma xanaaqsanin kuwaana ku maqal mooyay wallahi ha Khalid hala soo qabta Khalid hooyadaana telefoonka u geey kaameradana ka alayo halkan ka furta waa la idin yeeri doonaa Khalidow تلفون با إغلان شوي محكمة هذا ما ركتي كفر حشي أنا قاعد نوقت تكتي هراتي ده نقول ربتي با أنا ما ركتي لا رفنينا دتكي محكمة عاو صد الناقود بحرك لقوها يا اللي محكمة اللي قاعد دعويني أنا محل قاعد صد دعوت قاضي كراه ها والله إلى وان لقو كيرين أي مود قال بسم الله الرحمن الرحيم قال سدو يوك عرّة ظاهر هذه أطبق كل سلامي وين شو ظاهر حليمان واسلام السلام اللي بدنا حليمان يقال السلامان كانوا في الصومال ما قرنا هو يدي وير دويلة شوكتاي ظاهر وطن هو يلعب ولا السلام عليكم. عليكم السلام. أوه ما قاعد تحنوشك. منو جامع محمد بالله منو جامع محمد منو حقيقتك هرقيسة والله ما أعطى قبيل كاو أنا وحنا هبل يونس شاكته راعيناش وهي جواد الحليم حكى على الحي قبل الحليم وحنا قد حياة العقبة يقعد تري محايدين عروبة كودو فينيا ما يقولك يا قاد waxay ka qaaday 3,040,000 oo dollar 3,040,000 oo dollar way xaliim magacaas dhaxnoo sheeg ka soo bax muudka xaliim aniga xaliim ismaaciil jaamac leeyahay xaliim ismaaciil jaamac yaa taadu qolamata isku reeron baana muuse cabdallah taadu yana waxa muuse cabdallah idin waa raacinaas meeqad gabadhan ka qabtaa lacag gabadha lacagta sheegaysa caddeynteedan ka rabaa okay saud maan maqal hadalkeeda maxay tiri maan maqal hadalkeeda gabadha caddeyntan ka rabaa lacagta ay u sheeganaysa caddeynteedan ka rabaa caddeynteeda daaniga caddeeyna dadkii markaan u dhiibayay ila joogayna way joogaan oo waa markhaati haye Okay, New York Institute. Okay, New York Institute. Okay. oo gabadh sada xasan la yiraahdo joogtay marka lacagta u dhiibayay islaan la yiraahdo tirig xasan saado xasan qaalibiya la yiraahdaa waa gabadha la joogtay markhaatiga ahayd marka lacagta u dhiibayay okay oo hudho hargeysa ku haysatay ayra waahen lacagtan 4,000 oo dollar first payment waa yaa bixiyay 4,000 dollar ee ugu horeeyay 4,000 dollar oo meela second payment 8,000 oo meela
30 payments afar toban oo meela 40 payments 6 oo meela last 2 payments 500 oo lagu diray saad 500 gacanta uga dhiibay okay lacagtan xalimo kuwa maqnamay adig waxaan daahiro horta waxa weeyaan lacagta ay aniga gabadha ii sheeganayso qaabkee ay nagu qaaday sidee bay u dhacday sidee ii siisay markhaatiyada sheegaysa cadeynteeda rabaa markhaatiyada laftigoodu inay meesha soo saartaa rabaa oo leesho way igu maqantay iyo way iga maqantay markaasaan anigu oranaya ila iyaga mudduciye anigu madaacili baan waa inaan ka jawaabo wax cadeyn oo dhameystiran markay keenaan baan siday tahay anigu uga jawaabayo waya markhaatiyadu waa diyaar soo daa sal lacagtu bixisay isha noo sharax anigu lacagta waxaan markii ugu horeeyay 4,000 baan u dhiibay 4,000 sad ugu dhiibtay waxaan ugu dhiibay dahabaan leeyahay waan soo xaraashay saan u dhiibay iyadoo joogta suuqa oo gabadha Sadax Xasan la joogta hodheelkeeda la fadhiyan u dhiibay macnaa kaash ugu dhiibtay kaash baan ugu dhiibay lacagtoo dhan kaash baan ugu dhiibay 500 saadka ugu diray mooyaan inta kale kaash baan ugu dhiibay sidii tobanka gurigeedaan ugu geeyay aniga inaan ka yaga Khalid iyo islaanta ciyaalka weedada sabta ku aamintay maxay ahayd sabtan ku aaminay waxay ahayd anigu ma aqoon waa la ii keenay hodheelka saan ugu tagay waxa jira carruur aan dhoofiyaa inanta Sadax hodheelka laba inaan u dhoofisay way markaasaan ku aaminay anigu gabadha markay igu tiriso مقلص إنك مركب وجوه مقلص إني مقلص مية مقلص كي إني مقلص تدك التهريب شيء كوشت ها نين يتلوان سقبنايو عربو جوجا مريكان با دوفيا بيتري ددك كخيا ورقا سو دمينيا واي مرقاتيال ما حيسطا waxaan ayaa Sadax Xasan Sadax Xasan iyo maxay Tariiq Xasan aawen imika ma joogaan laakiin dawaan keenaya goormeed keenaysa maxkamadda hadii loo baahdo baritaan keenaya way Xalimo adiga iyo mis arteen gabadhan raacinash guriga mis arteen gabadhan waa isgaranaynaa imika gurigaygu way iska soo horjeedaa waxaan rabaa gabadhan waan keenaya iyo waan imanaya hadal maaha waad haysataa sababtaad igu haysatay cadeyn lacagtan iyo qaabkan kaaga qaaday maxkamadda adaa dalbaday now right isi aan ku jawaabay waan hayaa walaal ma seexin laakiin dadkii baan hayaa naayahay malayda maanta aniga dafta Xalimoy adigu dafraad ma jiro hayaa dadkii baan hayaa walaal qorey maxkamadan hayaa waliba soo ninka ku dacweynayna deekeen soo dir waan hayaa soo dhiib marka hore adiga lagu keenan doonay sawirkeeda la soo dhiga anigu waxaad hayso waan hayaa waxa anagu waxba isla diidayno halka ka tagnaa maanta dafirta aniga dafiraad kama hadlayo waxaan doonayaa inaad siiqada qowlkaaga hagaajisid dacwad waan hayaa nooma dhexaysid daahiro wax yar ma hadli karaa anigu daahiro wadaa wax kaa doonaya ku weydiiyo warka ana fariisin daahiro wax yar ma hadli karaa walaal wax yar daahiro wax yar ma hadli karnaa maadaama nahay ii sheeg afhayeenka dumarka u shaqeeya maxkamadda niyo horta in ilaahay laga baqaa fiican dadka qurbaha aniga ka wada yimid horta waa dad experience wada leh qof lacag kaash loogu siiyana marqaati iyo cadeena qof muslina weey ayada waxa laga rabaa in la dhaariyo halkaas soo fadhiisato kaamirada furata kitaab gacanta geliso inaysan hooyadaasi la kulmin inaysan lacag kaashaysa u dhiibin aysan ka qaadanin ha ku dhaarato ilaa dad badan oo ani waxa ila soo xariido lacag ka qaatay hadda fiiri maanta markay kaash lacag ku qaato daahiro waxa leeyahay hadan hal ii keeno ilaa waan ogahay ma ogta wixii inaan kaash ku qaatay
أنا بنجي كقاعدة حوالي اللي يصدق كيسك أنا أجي على عدها الجريمة أنا إيدا هذا ما يعذبك ما قصة دريري وأدرس كذي إنفورميشن كذي ده يلا لعبت لك على يلسو حريري وحين دي كده واحد ayaga ii dalbaday anigu waxaan qarinayaa ma jirto anigu ma jirto walaala macaanay gabadha hadlaysay aakhira iyo adduunkaba waan buuxa gabadhan kula hadlaysana annaga ilmaadeera annaga jaara ubadkaygu iska soo horjeedaan waxa ay sheegayso iyo waxay ka hadlayso dhan waan ogahay waxaan ka rabaa un inay sidii loogu talagalay arrinta هذا وقت يدور وشك anigana waxay noo dhaxeeyaan gabadh halkan ka hadlayso halkan gabadh ka jira anigu gabadh halkan ka hadlaysa daahiro uma soo korin leefkan iyo ka dadkan u dalbaday su'aal kasta hore kuwa kala lacag ka dhacday jirto maxkamada soo socda adiga wad maxaa dawladda anigu daahiraysa Musa أنا بروفيشنال هاي أنا بروفيشنال ma jiro أنا شغال خلاص أنا مر مرة daahiro adiga ku dhageysanaya wixii su'aala i weydiin iyadana weydiin laakiin anigu gabdhaha halkan isku soo xeeray diyaar uma inaan la joogo contact la sameeyo hadii kale waan ka degayaa aniga aad soo warano xaliim maxaa ka shaqeysaa xaliim waxaan ka shaqeeyay in aniga daahiro dhageyso walaalkayow anigu qof waxaan ahay bili aadana oo doonaysa bili aadamkana inay ka garbaxdo gabadh baa i soo dacweysay xaliiman lacag ku leeybay tiri walaashay weeyaan waxmana kama dafirayo waxba ha gubanin wixii jira anaaba sheegay sada xasan qaalibna in yar ka hor way taagnayd diyaar baanay tahay sadaanan aan deedsiin cid kastay keentaan deedsiin laakiin daahir cala soo ku kalsoonaada su'aashii weydiyo waan ka jawaabaya su'aashan laakiin anigu idinka mudduciyo aniga soo doontay waa ina waxaan idin weydiyo aan idinka doono aad sideeda iga jawaabtaan anigana waxa la weydiyo sideedaan soo dhigaya hadii aan wax markaa dafiro اوكي ama aan wax واي انا اريد انا ka hadla dooda waxa doontaan sameeya muna weligeed baan wada taagnay waana wada taagnay حريم اريد انا فضيناyo حريم اريد انا فضيناyo dii kala waan idinka degi karaa wax weyn maaha waan ka bixi karaa حريم اريد انا فضيناyo waxaan rabaa xariimo gabadha way noo warantay 43 dollar ay ka badan sheegatay lacag kaashay sheegatay payment sheegatay sawirkaaga keentay si aan ku ogaano qofka aad tahay adna inaad dhinacaga nooga waranto gabadha maxaa dhex maray oo ilaahay kuu ogyahay noo waran iska dhaaf idaha aniga ii waran maxkamadda waran maxaa dhex maray maya daahir u dhageyso walaalo anigu waxa weeyaan alxamdulilah horta walaalkay baa tahay qof aan aad u taageerana waa tahay anigu waxaan rabaa horta dacwadda maxkamadda haddaad taqaano mudduci iyo madaacili baa la yidhaahdaa qofka mudduciga ayaa la waraystaa madaacaliguna waa aniga markaa ay qofkanu dhammaystirto wixiisa ayaana su'aalaheeda qodob uga jawaabaya gabadhana waxay tidhi markhaatiyaal baan haysta markhaatiyada ha keento hadday leeda caawa ima diyaarsanaan habeen dambe ha keenso kow taana diyaar baan waan idiin jooga waan idiin fadhiya midiyahan ay moodaysa inaan anigu ka baqanayana midiya 20 sano ka hor baan anigu taagnaan ka hadlayay oon daahiroon iman baan anigu taagnaa oon midiya fadhiyay kow taas halka ay dhig gabadhan anagu 2 isbuuc ka hor baan wada hadlaynay 2 isbuuc ka hor ayaan wada hadlaynay oo ii tiri lacag soo diray beenalay saddex bilood baa soo kan dambeysay 4 bilood baa soo kan dambeysay dhageyso maalinta dhawada Sacuudiga aad maraysay Djibouti aad Sacuudiga tagtay ilaa iyo anigu taariikhday hayd iyo xilliga cajalada ii soo duubisay xilliga la hadlaysay halkan aniga igu jirto waxba igama naba anigu adiga kulama hadlay laakiin daahir baan la hadlay waxay sheegtaa gabadha maxaa dhex maray arrimaha kala xaqay gabadhan waxa weeyaan dacwaday imika gabadhan dacwadan igu soo oogtay iyo markhaatiyadeeda ha dhammaystirato markaasaan aniguna daahiro aan halay amsan kiiskaas fiiri ana waxaan rabaa in la isku daal kiiskaas aniga baarisida galaya markhaatiyaashada aan dhegeysanay aniga adaan kula hadlaya dadka iga dhaaf xaq iga dhig gabadhan maxaa dhex maray adiga ii sheeg gabadhan dacwadeeda ma dhammaystirna gabadhan waxbay sheegtay soo maaha xagga iska dhig adiga gabadhan maxaa la dhex maray ii sheeg oo ilaahay kuu ogyahay ilaahay kuu ogyahay ku gabadhan anaga waxaan dhex maray haddaan kuu sheego aan anigu kuu faahfaahiyo gabadhan aniga iyadoo ninkayga magaciisa iyo lambarkiisa iyadoo sidata ayay gabadhan aniga gurigayga igu timi ninkaana waagaas waan isqabnay gabadh marka gabadhana ay sheegayso
oo maxaan ku dhaysada la yiraahdo ayaana lambarkayga iyo magaceeda soo siisay gurigayga timi waxa igu tiri Xaliimay hawsha ninkaas wado uu gabadha ninka u kaxeeyay baan doonayaa inaan galo ma doonaysa inaad gasho ha soo lambarkiisa ma sidatid ha orod la hadal markaad soo heshiisaan aad wixii aad adigu ka rabta ninka aad kula soo heshiisid sida gabadha kale halka ugu dhigay alaabteeda iyo lacagteeda loogu dhigay ma intay loogu dhigay xawaaladaas ayaan kuugu dhigayaa markaas haynoo ahaato waa la isla hadlay waa la wada tagay waa la soo heshiiyey lacagii baa lagu soo heshiiyey waxay ila soo ii timi iyadii inankeedu si ay sheegayso waa run waxay igu lacagtii baan sidaan waxaan doonay inaan Saalim u shubno waanaan heshiina kale Xaliimayna raac xawaaladan tagno iyadoo saa loo taagay baa lacagtii laga shubay already markii lacagtii la shubay aan shubnay waxay samaysay hawshii waa loo ay deenkii way wada xidhiidheen way wada galeen iyaga wada hadli jiray anigu 24 saac biyihiisa baan ahaa gurigeeda maan tagi jirin ayaga ay yimi jiray dad u kaxeeyna way jiraan dad waqtigu ka dhacayna way jiraan kadib anagu dad dariso walaalaha baan hayn ilaa imikana way ogtahay aniga hanti fara badan buu ninkan gacantayga hayay ninkana nin marka horeba Hargeysa lagu dhibaateeyo lacag 300 kun lagaga dhaco iyadoo ogtahay oo cadeynteedii iyo markhaatiyadeedii maxkamada yaalaan bay ahaa ninkii kadib wuxuu sameeyay markii hantidii intii inanta maxaan ku dhaymaka Sada Xasan anigu arda sababo ku maqan lacaga inta badan la diray lacagtii adigu ninkii markii ku dhamaatay caruurtii way baxeen qaar baa tagay intii aan tagina calafkooda galena xilligii Trump qabsaday bay ahayd waqtigii baa ka dhacay kadib sidoo la soo hadlayay iyagana habeen telefoonka ma dhigi jirin iyaga la hadli jiray waa la wada xiriiri jiray codadkoodii baa yaala codadkeedii baan hayaa kuwii isagu soo diray baan hayaa kuwii isaga ku wada hadlayeen baan hayaa ifrid shay kaste heshiis baa lagu ahaa ninkii markii dambe isagana awdeed dhibaato waddanka markii horeba ka tirsanayay wixii uu isagu qabay markaas qalbigiisa ku jiray Ilaahay baa og laakiin anagu daacad baan ilaa iyaka anagu daacad baan sidii wax noogu wadaan ugu wadin anigana wixii la soo gaarsiiyo sida nagu diray iyadoo saa ila taagan oo ila socdaan mid xawaalada saa u dhigay okay lacagtii waxaan ninkii uu naga goostay shib uu naga aamusay telefoonadii uu naga xidhay internetkii uu naga bedentay shib uu naga yiri anigana iyagana waan u sheegay hal mar buu aniga arday sababay joogay ila hadlay wuxuu igu yiri anigu mar rabo Afrika mar dambe kuma soo noqonayo labada caruuraad haystana Soomaali si mar rabe naxdintii iyo dhibaatadii soo gaadhay markuu ninkaas lacagaha dadka qaadanayay si yar baadee Soomaali waa iska taqaana markay meel wax ku arkaan way ku ururaan laakiin Xaliim uu qabay unba aniga imka lagu eedanay shalay lagu ma eedeynay Hargeysana waan wada joogno shalay baan anigu Hargeysa ka imi anyway waxaan aniga ilmo yar baa iga xanuunsaday markuu iga xanuunsaday ilmo yar waan soo qaaday Turkigaan imi Sada Xasan way soo gali doontaa $1 ay leeyihiin hadii la kitaab gacanta ka saarnaa waan ka saaray afkayga inaan gali iyadoo way ogtahay kuwa kalena way og yihiin halkan baan ilmi yar la imi inta way ila hadlaysay codadkeedii iyo say ila hadlaysay saan u sheegaysana way iigo waan ku soo diri karaa now right waxa la igu Xaliimoy ninkii hadii la waayay waa inaan dacweyno haye baan iri anoo Turki jooga oo shilinka biyaha lagu cabahayn oo ilmaha yar sakaraadka wata oo media fadhiistay oo dawarsaday oo umadu ii soo qaadantay ayaa waxa la igu khasbay hadana in ninkii loo lacagtiisii maxkamadda aan diro oo ayagu maxkamaddii wakaalada aan dhiibo wakaaladiina Sada Xasan aan ku qoray wakaaladii baan dhiibay ninkii maxaan ku halkaas lagu dacweeyay saddexdii maxkamadoodba way soo xukumeen xukunkii iyada ii soo dirtay hadana waxaan ku soo dirayaa iyadoo ila hadlayso igu leh Xaliimay xukunkii waan soo qaaday waan in ku soo guuleysanay dacwadii waa taas oo ku diray videogeedii iyo codkeedii hadda ku soo diri karaa daahiro hal kelmad beena haddaan ku darayna dee Ilaahay baa iga marakaa okay sidii xukunkii markii lagu soo dhameeyay iyada soo dhameysay xukunkana iyo inankeeda markhaati ka oo suul ka dhigay faylkii iyaka hayo dhameystiran gurigeeda ayuu yaalaa haddii cid la dacweynayo ama cid ay wax u raacayso ama aanay markii ugu kalsoonay aniga intay kalarka ugu dhigtay ayay dacweyn lahayd okay waa la dacweeyay Saalib dacwadiisa oo dhameystiran waan hayaa warqadeedii oo dhameystiran haddaanad haynin haddaan ku soo dhigaya Sada Xasan intay leedahay anigu intaan leeyahay iyaduna intay leedahay hadday lacagta lacagaan hayn gabadha muuni iga doonayso $100 dheeraad ka ahaado ay leedahay Xaliimo waan u diray ama waan siiyay daahirow saacada now raid ummadda islaamka halka ku jirta haddaan doono ka tuugsanaya dawaan siinaya laakiin lacagtaasu lacagay markii hore heshiis ku soo bixisay bahayd markii dambe aan heshiis ku dacwoonay bahayd waxaananu hadda isku ogeyn oo gabadhaan codkeedii iyo suuradeedii iyo waxay ku hadlaysay intaba aan markhaati ana kuugu haya inayna khayr raid ahayd guri buu ninkan Jabuuti ka dhistay gurigii iyadaan u dirnay iyadaa soo aragtay lacagtay ku soo arkaysay anaa u diray ay ku soo jeegaraysay waxay la tagtay in Jabuuti bay tagtay guriga way soo aragtay waxay markaan imika ka soo noqdo in Sacuudiga
ayaan xaliimoy aniguna halkan ka soo baxan mishan markaad sharciga iyo waxaas ku soo hagaagaan Djibouti inaan iskugu tagno oo ninka maxaan ku riyay aan xoolahayagii hadii iyadoo halka dacwadii ka soo dhameeyeen aan haddana Djibouti aanu dacwadii u soo rogno ayaa maxaan ku riyay anagu imika heshiiskaygu ahaa allana nagu ogaa ummaduna nagu ogeed wixii nagu ogaa hadii ay dadka kale aanay ogeyn annaga saddexdeeda dumar ee sheekadan ay qusayso inankeeda iyo hadaanay u sheegin iyo dadkeeda hadaanay u sheegin saddexdeedu saas aan heshiis ku ahayn haday sada way iman doontaa wax ka bedeshana aniga beenelaya miidiyahana saacadii telefoon layga soo diraba diyaar baan hawaan taaganahay kow ninkii maadaama dacwadii maxkamadii waa akhrista muslimka ilaahay lama ribeeyo aniga ina layga dhigo tuugo wax dhacday bari iyo saad dambaba hadii la xaliimo waa tuugo wax aan jirin laygu masabidana allaha 99 magac laba qofkii i ribeeyo horta aan ku xawilay ama halkan ha saarradaan leef baan kugu soo dirayaa leef hadaad warqadii ayagu hayaanaha kugu diraan okay jooji xaliimo markay ku timid xawaalada aad tagteen lacagta ma ayada gacanteeda ku dirtay oo kuba xawaalada u saxiixday mise aday ku dhibtay oo magacaaga lagu diray mise magaceeda lagu diray mid lacagta mid waan wada soconay oo ninka inta u dhiibaan ku muuna inta saaniga ugu dhiibtay baan ku magacayga ku dir oo waabaan wada joognay xawaaladana muuna markii dambe waxaad ku marxaati kaaga ah markan anigu imika aan joogay Turkiga ee lacagaha xawaalada laga soo saarayay muuna iyada xawaalada u tagtay ninka xawaalada ila soo hadashay lacagta ma magacayga ku baxday mise magaceeda ku baxday maya lacagtu magacayga ku baxday been ma sheegayo magacayga ku baxday laakiin raalli baan iska lahayn waan wada soconay intaan ku ri ayaga shub ayaa waxay igu tiri aniga baasaboorkii baan walaal soo yiri ku baxday meeqa way oo ninka loo diray lacagta magacayga ku baxday waxa weeyaan lacagta halka ku qoran warqada maxkamadda ku qoran meeqo waa meeqo sheeg waxa weeyaan 40 iyo 3 kun $40 wata warqada ku qoran ninka telefoon ma ka haysaa ninka anigu telefoonka ma haya iyaga telefoonkiisana haya mar buu ninku ila soo xidhiidhay hal mar buu ila soo xidhiidhay halka mar waxa la wixii soo diray deganaashiisiisa yar ee wadanka uu ku galo sida markuu iigu soo dirina iyaga waan u diray inta kalena waan u diray ninkii uu ila soo hadlay waa marka uu nala hadli jiray iyagana uu la hadli jiray marka codadka ugu badan uu ka xanaaqay ee uu telefoonada nooga dansadana gabadhan ku jiray dadku waxooda ba ka maqanay ama waxooda u soo dir ama telefoon laga diimayo marka uu hayaan iyaga ninka magaciisa maxaa leedahay ninka magaciisa waa ka warqada ku qoran maxaa yuuya nigar waa Yamani waa reer Djibouti guriga Djibouti ugu yaala muxuu dhan yahay abarkiisu iyada tagtoo de noo soo sheegtay muuna iyada tagtay guriga soo aragtay wax qiimeyn ma lagu sameeyay maya laguma sameeyay waxaan ku balansanay imika inaanu tagno oo aan xayirno horta oo xukunkan maxkamadda aan haysano aan la tagno okay $500 lagu soo diray saad rumi adig ay ku soo dirtay wallahi walaal anigu imika saadaydii de war ma hayo waxa ku dirtay laakiin ma bada firsadiba waxa ii soo direen maya waxa ii soo direen haday saadayda ku jirto anigu long time baa igu dhameysay saadaydii ku jirteena eeg saadaydana iyaga soo saaray iyaga matalan imika baleeg muuna iyada mas'uul laga ahayd xawaalada yara tagto waraaqa ka soo saartay kuwan anigu diray iyo waxa iyadu dirtay iyaga ka soo saaray maxkamadda iyada tagtay iyada waxaan oo dhan kala waday faylkii iyada haysa wixiiba oo reeri gacanteedu ku jira marka 500 iyo mid ka badan baaba la sheegaya oo demeesha ka baxday waxaan ku weydiiyay musoo hubi kartaa 500 insaadkaaga lagu diray 500 insaadkayga lagu diray de haday iyagu hayaan waaba ku qanacsanay haday iyagu hayaan anigu de wayna sababta lagu soo diray 500 sababta lagu soo diray maxay ahayd lacagtan ayay ka dhin wallahi anu taama hubo saad laygu soo diray ma hubo because anu waxaan ku diray adiga iyo muna hargeysa ay ka degantiin xaafada ka degantiin de anigu neeyo hargeysan degan jaar baan nahay marka adiga guri leedahay meesha ku yaala mise guri kiraad ka deganta ma guri kiraad baan anigu deganay yaa ku degan hada gurigaas ya caruurtaydii oo la jaarayada okay anigu inta yar xanuunsanayso ma soo qaaday maxkamadda warqada laga soo qortay adiga magacaaga ku jira de daahir akhriso de 1 2 3 ku akhri waatan ku diraye hada English way ku dir aan warqada fiiriye maxkamadda way haysaa England u dir way haysaa akhri okay isu kalmar warqada waxba haweentii wax cad baan anagu ku geynina laakiin yala iyo la akhriyaa meesha ku taalo ma ani soo dir u dir ma ku dira codadkana wax ka saan ku cadeyna ku dira waad haysaa de waa ku soo diray warqada حليمة هالمرسوك
دايرو ان نينكي باسبور كيسي باريتانكا ان كسو سميني باسبور يمني وليه مid جيبوتيان وليه جرين كار كيس امريكا كل واكا هدان بارنينا wax walba wuu qariyay امريكا ادريسkeeda waan soo helnay New York ان waa hatta ku soo diray black ha amuna haysaba de baasaboorkiisa koobigiisa waxaba anigu maalintii kaliya soo diray maadaama anu qof xanuunsan waxaba muunaan u diray anigu waxaba muunaan hadlo daahiro وكذا الملوك هذا ذيك هذا موجود هذا يسمونه يسكسو منا مود قال يا خالد منا مود قال يا خالد هذا إذا هايسته مونا هذا الوحي قلبك شيء هذا الكمال في عمبو إمريا أنا ربجي بهني كيس كمال بفولي السوق حيرا يدي مني أخي المرسوك سوسي محمد داود كيساس كنوع أنا محكمته وأنا هذا لقى النقطة لكن لو وقف سياسته وأين هذا وقف حكومي أنا قف كأساسا معقول ما هو إن الخبيه واي وعلى أسكو هيست هذا هين قف عند هذا من غكرت وأنا أقولنا يا قردن يا سقردنين أوكي أنا أقول عقنا كم مرة من الوضع ضد حيوي ضد والوي إن أكره عدالة فالنبسة مهمة. والله أنا سوي لا يقو قبتها مركي لقى هذا التو أفكي قروا بقول يلا واتن يش بقول يلا واتن شكون أدور أي أكره ليهين سادة حسن قارب أولى أفرتي سجالكون USA منى جامع محمد أولى أفرتي شدة كون USA يا حريمي إسماعيل جامع أولى صدن يلا وكن USA anigu waxaan leeyahay 76 kun baan leeyahay anigu lacag badan baa halka ka maqan markaas sidaynu ka suganay inay berito la keento warqadaas markay aragtay dhamaan asbaabta sare ku xusan maxkamaddu waxay soo saartay digniintan jamhuuriyadda Soomaaliland magaca ummadda Soomaaliland maxkamadda gobolka Maroodijeex digniinta maxkamadda gobolka Hargeysa waxa ay ku amraysaa lagu furiyo Salim ناصر محمد إن أمده طبعا إيش جذوه كوب يلا عقدن بقول لا تشوفون $1 بقول لا تعرفوا عن وحول عقد تاني كل الجنية لو فلية تذكر حليم إسماعيل جامع منى جامع محمد سيادو حسن قارب تقدين تاني وحلو أبراعي قضبة ذكر لبو تضبط لبو سدح شديد سدح أفر سدح ها ما digniintan waxay ka bilaabaysaa maalinta la gaarsiiyo lagala saxo lagu fuliyaha digniintan waxay soo baxday maanta oo taariikhdu tahay 5 bisha koowaad 2021 maxamed ismaaciil ibraahim kaariyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex Hargeysa 2021 lacagta maqan tahay midhow lacagta waxaan ku soo diri karaa gudoomiye mar labaad ay muunu ku noqotay gudoomiyaha maxkamadda sare nin baa yidhi lawyer baan idin noqonaya iyakuna way wadoogaan waan u sheegay wuxuu ninkaasi nagala soo hadlayay Mareykanka wuxuu yidhi anaa ninka idin soo qabanaya kadib gudoomiyaha muuna aan ku yidhi waxa laga rabaa lambarka gudoomiyaha ayuu gudoomiye wuxuu noo soo qoray lambarkiisa gooniya iyo emailkiisa gooniya cid meel kasto ninka ku aragtaan halaysoo garaac waa ku lambaradayda waya oodkan English oo igu dar waya muna halkan waxa ku wada qoran adiga iyo Xaliimo adiga iyo Xaliimo day marka qof idinkoo wada dacwoonayo ninka wada dacweynayo wax idinka wada baqan yihiin say iid wax ugu leedahay fahamsi iyada waxaan ugu leeyahay way maqlaysaa iyada waxaan ugu leeyahay daahirow lacagta iyada iga qaada marka leedahay Salim bay iswateen oo iyaga isla hadlay waa been taas horta waa been moogtay anu ma noqon Salim iyada dadka dhoofineysay hudhaa ka sadana waa la igu keenay iyadoo fadhida aniga waddankana waan ku cusbaa lacagta iyada gacanteeda ku qaaday waa beenteeda iyada dirtay anigu ma dirin mana raacin hudhaalkaasaan ugu dhibay lacagta iyo gurigeedana ay leedahay nimarkiisu ku yaala ma garanaysaa kaasaan lacagta ugu geeyay barnaha kaasaan ugu geeyay barnaha hudhaalkaasaan ugu geeyay
deetana lacagta iyada dirtaan waxaan diran xawaado raacay ma jirto taa been bay ku sheegaysaa واي maalin aan maanta hayn baana carabkeeda maanta uu qoyay laakiin maalin aan maanta hayn bay ayay ka hadli doontaa lacagta agoontay qaadatay واي markii dambe ninkii waxay tiri telefoonkii uu nala soo hadlay ha saalim say sheegaysa uu nala soo hadlay ninka carabkii ciyaalka wuxuu soo diray waraaq uu soo diray jaamacadeed uu ku kaxaynaya deetana sidii uu ahaa muu telefoonadii xidhay sanadna bayna wareejinaysay markii dambe nagu tiri ninka telefoonadii uu naga xidhay ilama hadlo biilkii iga goostay waan ashkataynaynaa واي waayo baan ku nidhi aniga inantii kale sado ma maqlaysa daahirow واي نكو وانيكا ashkatadii baanu tagnay waanu ashkataynay lacagtii baanu bixinay waxay tiri looyar baa inoo qabanay nin maraykan joogaan la hadlay looyarkii meye baan ku yidhi waxay tiri looyarkii wuxuu yidhi aduu sharciga soo qaado deetana kaale jabuuti ayuu igu yidhi bay tiri ma fahantay marka maxkamadda soo jirta waa la dhammaynay maxkamaddii waraaqdii waan la qornay wixii ka dambeeyey gabadhaasi maxay انا كو قبا ما دام لعقته اي كاغا قادي كده حليمو oo xaliba ay ahayd qofkii lacagta ka qaaday maxaa maxkamadda maroodiix u soo dacwoys maxkamadan hargeysa waxaan uga soo dacweyn waayey waxa ma haysato way baktiyeysay carruurteeda way gaajoonayeen hanti ma laha markaasay tiri innagu ninkaan wada dacweyno bay tiri saasaan maxayda ku daayey aan ugu samray hadda maxaa iska beddelay markii dambana hadda maadaama is waxba haysan iska beddelay يا ما حاسك كاب بدل هذا مركز ده وين بختيس وحبي وحاسك كاي بدلي وحاسك كاي بدل ورو ما هي لقى دعي أنا ورو ما هي لعكت وان درين بتري ورو ما هي لكن إن يدو درتي إن يدو قاطي تاك ما ورهم كرده وانو دي بوان كتجي أنا هذا مقرشين يسأل محكمة كدعوس أيضا محكمة دارجيسة محكمة دارجيسة كم دعوين كرو واي محكمة دو حوار ساعتين كان عدينا يمي قرن يدو ما هي عدين ترى خوف اللي هذا أنت فيديو قال إذا قالت العكس إذا كان قاضي ما قاعد إذا لو دري تاس دي ممكن نقول أيضا أنا بهرجيسة كم دعوين كرو لكن المحكمة أنا كدعوين يعني إن العكس العقون طلع قصة قاضي أنت أنا يلا يقاضي أوكي نيك أنا يلا ودتي كم على هاي نيك يدي بوهاي جالس كبير عرب يسود عليه شنب يلا أنا برصك كحينسي أضد بدن بكحيسي إن أنت صدقني إيه أنا بوكحيسي لا بكلم ويوكحينسي اوكي $500 ayaad ku dirtay saadka maxaa u dirtay lacagta 500 way ka harsanad lacagta ay ka dhinay sida waxay ka dhinay lacagta aan u diray maxay ahayn 43 ay ka dhinay say ugu tir soo buuxi 2000 iyo waxay ahayd 245 say ugu tir 500 baa loo baahiyay si marka waan u diray 500 goorma dirtay sanadkee dirtay 500 sanadka waxaan diraan u malaynayaa adigu 18 baan u malaynayaa shit maxaa ku daa 2016 yaa 2018 ها ayda lacagta inay hesho ma ku sheegtay marka mugtir waa helay ها de saalka soo kan waan helay wallahi lacagtan ku soo waayay bay ku tiri waaya okay Djibouti aad tagto maxaa Djibouti laakiin lacagtan anigu iyada u dhiibay saalina ma garan anu saalin ma noqon iyada noo ku disal cunna barto telefoonada siisay wanta la telefoonada iyaga soo tabay tii waa been Djibouti maxaa ku soo arag Djibouti anigu aan taga fiisa aan doonto inay yaran dhalay oo Suudiga joogtaan siris yara gaad deetana iyada ila soo hadashay oo tiri in maxay ahayn ninka gurigiisii saalim guri buu lacagta leey guri buu ku dhistay lacagteeniye soo basaas ayay ugu tiri haye lambar bay soo walaashii leeday lambar bay soo dirtay wata lambarkeeda iyo walaashii ila hadal iyada idin sheegaysa u tago soo eeg marka tagtay maxaa soo aragtay marka gurigii waan soo arkay intii waa la hadlay waxay ku tiri intii guriga walaalkay baa noo dhisay bay tiri walaalkay ayaa noo dhisay guriga hooyadayna 5 bilood bay sii mootanta bay ugu tiri walaalkay u dhisay Salim yaa ku qoran guriga Mareykan jooga yaa ku qoran guriga ما ويدي ku qoran inta waan toga dawaan basaasay ma ogtay waxa ma sheegin haye oo sibay iibinayso oo sidii ka soo iibsaday marka waxaan ku guriga ma idinka lahaa bay tiri walaalkay baa noo dhisay bay tiri walaalkay baa anigii hooyaday noo dhisay bay ugu tiri inta ma ka soo duubtay cod ahaan may ka duubin haye hadda
حليم العق ما هيشطو لكن waxay qaranta lacagta inay gacanteeda kaaga qaaday oo xawaalad u dhigtay ninka sida adiga lagu dhacay ninka lacagtii u dhacayna ayna loo dhacay saadan loo dhacay hal maxaa u aragtaa hal waxaan u arkaa inay ninkii inay nala ashkataysa bay ahayd markay tiri ninkaas ay garso inay ashkatayso markay halka ingiriiska qabatay ay wuxuu samaysay soo meehayn way iga aamustay wallahi allah telefoonka codkayga way dhageystay ka baxdaa cod baan u duuba way dhageystay ka baxdaa okay maxaa hal u arkaa afar bilood ma noo wada yaa xidhiid kolba halkayga way dhageystay ka baxdaa hal maxaa u aragtaa hal waxaan u arkaa dad lacagtii laga qaaday lacagtii ay noo doonto ama meesha iyada ogda horta hala weydiiyay meesha lacagtii geysay anu war uma hayo meesha geysay lacagtii kama warrami karo laakiin iyada way iga qaaday meeqa cunugay u haysaa ay u dhashay ninkan carabka laba hablood habluhu xagee joogaan ma idin la socdaan oo ingiriiska joogaan mise waxay hargeysa ku nool yihiin hargeysay joogan intan dambe ina kaxaystay mooji laakiin markii igu war dambeysay hargeysay joogin xaliimo wax hanti ay ku leedahay hargeysa ma taqaanaa waxba kuma leh ninkan wax oo hanti ku leeyahay Soomaaliland waxba kuma leh bay igu tiri guriga Djibouti ma lagu qabsan karaa haddii dowladda Djibouti lala hadlo dee waxay igu tiri guriga anagu noo dhisay bay igu tiri inuu magaciisa ku qoray in kale laakiin war uma hayo okay guriga xaafadda ku yaala haddii aan dad u diraayo lasoo hubinayo ma sheegi kartaa guriga meesha ku yaala xumbuuli buu ku yaala anigu Djibouti war uma hayna wiig baan joogay moogta inta fiisa ka dhameysay baan joogay anigu Djibouti laakiin xumbuuli bay igu tiri meesha xaafadda waxa la rabay igu tiri xumbuuli iyadu okay waayahay bas maxkamadda Brito ee dib idin ballaminaysaa waa dhageystay xaliimo ma inkarsana lacagta ay kaa qaaday oo ninka u dirtay laakiin inay heshiis ku ahaydeen oo adin ninka soo heshiisinay sheegtay waxaan isku dayayaa ninkan la hadlo telefoonkiisa ay soo diraysaa dhageyso adiga loo fudeed baa samaysay lacagta fudeed iyo daacadnimo iyo Soomaalida waalidada lacagta ku bixiseen lacagaha marka inta la soo diraayo account la isugu diraa anu daacad baan ahaa Sacuudigan ka yimi inaan marka hore waxaan haynay yar Sacuudi ka tagtay markii dambana markaan imina daacad ma iska qalbigayga saafi baa daacad baan ahaa waxa kale waxa sayid ku dhacay qadarkuna uu jira waxa kale oo ka asbaxda marka dacweynaysa Saalim ina maxkamadda geyso Xaliim maanta jid iyo meel loo raacay lacagtii lahayd ama Soomaaliga arlay ama qabiilkeeda ka qaadi lahayd ama aydan dhina yareeya wixii meel u raacna aqalad laakiin adii lacagtii iidi baa kugu daarato oo kula dacwootay sida meesha ku xad saddex qof oo iyadan la socotay arrintan iyada wadatay maxkamadan waxaan iyada wadatay anagu maxkamad kuma aanan jirin ba iyadan qasbayso na waday sheekaas anigu daacad baan iska haaro anigu si professional ay isu bari yeeshay inkastoo lacagta ida ka qaaday xawaalada hadii ambaaro aan ka soo helay magaceeda in ku dirtay haddana ayadii waan haynaa ana ka saaray waraaqi waan hayaa magaceeda ku wada qoray lacagteeda wada dirtay haddana ayadii baa ama run ha ka ahaato ama jilitaan ama run ha ka ahaatee dhiban iyadoo ay maxkamad tagtay marka saddex dhibane yaa meeshan yaalla ama iyadu run ha ka ahaato lacagta laga qabo oo dhibana ha ahaato ama maskixiin say idinka saakiin beri yeesho haydla tagto oo haydla raacdo oo haydku daarato wixii dhacayba arrintaani waan baarayaa ninkii baan wacaya carabka ahaa ee xaafaddu ku nool yahay baasaboorkiisa wixii siiyaan immigrationka weydiinaynaa waa la dabagelayaa haddaa wiig siisaan ninkaasi warkiisa oo dhammaystirnaa imaanaya صح ها ماشي dumarkana waanu yeedhayaa dumarkan marka lacagta u dhiibayna waanu yeedhay waan ballaminayaa habeen dambe كده العكس هو ماشي مو وحاول يسلقنا داهر وحبان ولا الكويدية هل سؤالك كويدية أنا مقعد كنت تمين كسنة بعيد ها لكن ما كانوا أنا يودي على سو أنا مرة حوالي ما تجين كتاب قاعد تنقص علينا إن أنا تجين مرة حوالي أيوه تطلع قاعد لكن العكس إذا أودي في إذا هدفت لكن أقول هذا واحد كوي شيء أنا كنت دري أرنتي صباري أما كنيك يا واسيا والله ما أدري مونا هيسين بس حليم يا لا قصاه وتنيك وأنا لا شك يستا وي رالي بانكا داهر ولا لو سؤال بدونينا كويديو أنا كنت درسده داهر وهرت waxa weeyaan adoorta adduunka waa laga tagayaa anigu wixii anigu uba diyaar baan haystaa yareer iyana way haysataa muunana annaka xumaani nagama dhaxayso هذا إلهي ما تقدر الله ونعم الوكيل
munay adigu أنا wax been kuma darin أم خالد maxkamadda ha dardarin ka dhagaysa hadalka markii lagu dhameeyo ka bacdi ka jawaab inaad ku dhagaysanaya waa inaad dhagaysato waxa weeyaan daahir walaal daahir markaan maxkamadda aan laga dacwoonayay inta waxay tiri iyadaa wadatay xukunka markaad leedahay ilaahay ka baq halkan waxaan u soo fuulay ummadan adaa u soo fuulay inaan wax u sheegno markaad anigu lacagtan inaan diray oo ninka aan u diray idina ay la ogeydeen anigu ma dafirayo kamana dhaaran kartid anna kama dhaaran karo taas waa qodob haddaad alla ka baqanayso weeye qodobka labaad ee kale waxa weeyaan maxkamadda markii la furayay xaliimo hargeysa may ku noolayd mise kumay noolayn xaliimo turki bay ku noolayd ilmaha yar bay dhakhtar ku haysay idinkaa maxkamadda bilaabay dhameeyey asad out idinka adigaa muunay soo dhameeyey faylkiina gurigaaga ayuu imika yaalaa isagoo dhammaystiran waa qodob dadkana waan iskala tegaynaa inagu daa hargeysa wada joog haddaad aniga dacwadii qabto ama aad adduunyo igu ogtay ama aanad ogeyn lacagta inaan halkaa mariyey isla abti nawgii markii aan taagnaa eed arkaysay dhibaatada i haysatay inuu aniga saalimi dhacay oo lacagtan lacag ka badan iga maqan tahay dee markiibaad xawaaladda intaad adigu maad tagteen intaad lacagta ilaa adigan xawaaladaba tegay soo wada saaray kalsooni ku soo saaray ee magacayga ku soo saaray dacwadda ku geeyey markiibaad aniga maxkamadda geyn lahayd aad xidhi lahayd ee waxaad ogtahay inaanan anigu waxba idinka cunin waxna inaanan idinka qaadin ayaad ogtay muunay codadkaagii waa kuwan adigoo saalimka la hadlaya iyo anigoon la hadlay codadkiina waan keeni waan wada diri karaa anigu lacagaan dafirsanay oo aan leeyahay muuni may bixin ma jirto lacagtaada waad bixisay laakiin qaabkaad ku bixisay anigu waan caddeeyey adna sidii iyo ninkii loo diray iyo ninkiina dhacay iyo sidayna awalba heshiiska ku ahayn eaynu ku dacwo tagnay eaynu imikana wax ku doonayno ama daahir saani ugu sheeg oo sida ilaahay ogyahay u sheeg haddii aad muran iyo jiijiid rabtana dee walaal hargeysaynu wada deganahay daahirna laba habeen haddaynu xijino habeenka dambe waynu ka tegaynaa dee falilaahi alxamdu iyo waxaynu kala qaadnaya hargeysa anna waan imanaya ingiriiska haddaad si leedahay xalima lacag bay ku haysataan xaalad kastoon ku jiro maalin kasta telefoon baan kuugu sheegaa xaalad kastaan ku noolay waa ogtihiin telefoon idinkamaan xidhan idinkamaan aamusin caruurtayda ka war haysaan anigaad iga war haysaan waxaan cuniyo waxaan cabo waad ogtihiin maalin walba halkay wixii maraya waan kula socodsiiya codadkii ugu dambeeyad lahayd khaalida inanta yara bugtaha soo qaado xitaa waan ku hayaa wax ka dhacay iyo meel aan idinka tegay midna ma jiro haddaa i rabaynaysaana dee ilaahay baa inoo kala cad qaadin daahir cali soonooy markaynu iskaga wada tegin waana ka baxay anigu مقال جواب مقالك الجواب ها maxay leedahay maxkamadda ilaa iyaga qoray oo maxay tagay muuna tagtay ilaa aanu ma tagin way la socotay iyadana la qortay iyadana diyaarisay maxkamadda hoosaan geeyay waan ka saarnay tii sare markaan geynay iyadu dhooftay markaas dhooftay iyadu maxkamadda sare markaan geynay ay dhooftay markaan inta kala sada ka saarnay waraaqa maxkamadda sare oo ku noqonaynay taas waa been iyada been sheegaysa way joogtay maxay leedahay dhoofkan leedahay inaan ka tiri inanta ka xeeyo iyada igu tiri inankaaga inantayda ka kaxaynaysa inuu qabo marka sharciga hesho ay igu tiri markii dambe deex bad soo tiri inta way bogtaa cidna ma kaxayn karto bay igu tiri ma fahamtay hello hadalkaada wado liskama koobiyo hadalkaada wado dhamayso ha marka hadday duruufteeda aanu maan ogeyn duruufteeda anugu maan ogeyn waxay qabtana maan ogeyn ingiriiska ku joogtay maan ogeyn iyadaa telefoonada xidhatay iyadaa dadkaan la hadlayn iyadaa maxay leedahay been iyo balaayo dhuraysa sida imika beenta u sheegaysay beenta igu sheegaysay ay leedahay iyadaa tagtay maxkamadda iyadaa soo qorantay wayna la socotay waraaqayadaa noola diyaarisay iyadaa maxkamadda hoose markaanu geynay aanu tii dhexe geynay aanu tii sare geynay saddexdaba iyadaa nala socotay inantii kalena way joogtaa sado lacagtan ay leedahay iyadaa ninka la hadasho u dirtayna uma dirin kitaab jaamacan gacanta ka saaraya inay iyadu lacagta iga qaaday intaba iga qaaday saalimna aanan garanayn aanan aqoon iyadu noo sheegtay iyaduna bartay iyo telefoonkiisa na siisay iyo maxay sawirka green cardka na siisay waxba iyadu na siisay ayaa kitaab gacanta ku saaraya anigu inta ay sheegaysana maxay maxkamadda ay sheegaysana iyadunba maxay leeyihiin nala socotay markii dambe tii waraaqa ka soo saarnay anagu lacagtana iyadaa qaaday iyadaana ku maqan tahay iyadaana haysa iyadaa khiyaamadan iyo waxaan oo dhan samaysay makaynaysa ina muunay halkan uma inaa soo gelin waxba inay su'aalna ummad bayna dhageysanaysaa kumaan caayin anigu runta sheeg anigu ma kamid caayin iga maqashay aniga ma kamid caayin iga maqashay xaliimoy maya anigu inaan muunay cidna khiyaamayn waad ogtahay tii la cabaadaysay ila calaacalaysay ee maalin walba ii cataabaysay ee dhibtu saalimina gaadhsiiyey ka hadlaysay
maalin walba aniga haddaan ku xidhayo anigu maalinta argagixisay ma ku xidhi lahaa marka arkay dhibaatada ku haysta baan iska aamusay laakiin markaad ingiriiska gashay ayadaas tilmaanu ku iman mayso ama waxba kaa qaban karma telefoonada iga xidhatay waanu lacagta la xoolaha agoomada tahay wax badan baad qabanaysid daahir calas oo kaashka tain lahayd maxay ninkan carabkaas sheegayso waa ka daahir calas waa ku soo qabtay marka waa kaas la barkiisina adaaba iga dambeeyay lacagta ina adu iga qado gacantaada iga qado aanu xawaalada aan tagin waad ku dhaaranaysaa kitaabad gacanta ku saaraysaa horta lacagtan ma lacagta halka ku qoran mid aan hayba muunay aad raadinaysa mise waa mid kale adiga gacanta ka saar horta gacanta ka saar adiga saarista maxaa keenay lacagtan inuu saalim aan u dirnay adna waad ogtay anna waan ogay waan iska daanu ma ogin anigu adaan ku dhiibay adiga adaan ku dhiibay kulaan kugu dhiibay hudaalka sidaan kugu dhiibay maaniga hudaalka sidaan kugu dhiibay soo dhagalay arinta fiiri sheekad dumar isfiirsanina sheekad dumar laba rabo arintaas in lacagta ay ku dhiibtay way cadahay in loo dirana cadaynta waraaqayba ku qoran laakiin anigu waqtiga dirtay uma qaalid yaan waxa baras la raacin xaliima lacagta adaa gacanta ka saartay laakiin iidaa qaada xawaalada dhigtay ninka inay u dirtay rasiidka cadayntina warqadii maxkamadda ku soo qaadatay haddana waa soo fiiriyey lacagtii ninka waa u dhacday wuuna qaatay xawaaladan waa loo dhigay cadaynteedina waa la hayaa sideedii kuna u dambeysay Sada Xasan Qaalib baa u dirtay anoo arday sababa jooga sideedda kuna u dambeeya Sada Xasan Qaalib intay tagtay meesha ayay inantan iyo anagu isku mid baan dad isku meel kaliya ka duuliyay marka ninkii anima la hadli karaa birito hada jaa adigoo wada hadlaysiin coodkii wax dhan bay gabadha haysaa marka adigu waa laga hoos bixiyo ma taqaanaa xitaa sidii wax loo abaabuli lahay wixii fahamkiya ka xumaado ma fahanto maqaarid ninka marka lacagta uga harimayna carabka ah gabdhuhu dhaw lacag ka qabaan ninku lacagta ka keeninay waqti ma gelinaa oo lacagta ma ka daba luudnaa oo ma u dagaalanaa oo ma dacweynaa oo fayl ma ka qornaa oo faylkan aad haysa ka uma keenna la faylkiisoo dhamaystiran maxkamaddana waan haynaa wixii ma daba galnaa oo shaqo ma qabanaa maqaaridi way ku qasbanta ku garaaci lahay xaliima hal shil ma haysta maxaan ka qaadaa waayahay haddii waxba haysan daahir igu daa way ku qasban tahay uma khaalid waa in la raadiyo wixii xaliima wax ku ogtaan ii sheeg haddan waashu gudirina keenan le lacagta dhig xagee xaliima lacag ma haysato sida muuqata uma khaalid iyo khaalid hooyadiisow waad labadiinaba waad ku qasbantihiin in la mira dhaariyo meel walba laga raadiyo ninka carabkaana wuu isqariyay annagu waa baarnay marka xaliima waa hooyo caruur waxay shareecada islaamka qabtaan fiirinaya su'aal mar dadkan ma waanayn lacagta aqoontayda marka hore maxay iskaga daadaadanaysa qof iskaga ku salaamay dhimayn horta waa ka qaade arrintan waa aragtay su'aal ma ka qabtaa maxay diintu ka qabtaa mudtiro Soomaalidu maasha Allah su'aalahaaga iyo qaabka u su'aashay iga yaabiyeen arrinta maasha Allah meel fiican aad dhigtay hal arrinaan daahir ku weydii lahay ina ka codsan lahay ina weydiisid su'aashay hal arrinaa iga soo baxa gabadhan kin Khalid u qoran tahay ina cunugeeda gabadheeda ay wiilkayga wado aan ku ballanay ku dhahday su'aasha sababta ay ku timiday in gabadha wiilkii ku wada la yiraaho maadaama nin lacaga ay wada dhiibteen lacagta waa la isku raacay inay gabadhaana ninka ilmaha ka dhalay ay u dhiibtay taasuna ay dirtay maxkamadana raali iska wada ahay ayagu say rabaan u heshiiyaan laakiin arrinta ku timiday in wiilka la kaxeeyo oo gabadheedu u kaxeyso kadibna ay dhahdo way xanuunsanto wax ma kacay karto heshiiskaas uu ku dhacay ma noo weydii kartaa ida ayaa ka jawaabay ومقالد كوربر مش صبح مقالدي ها يدا يقول تري markaan ku yiri caruurtii inamadii halkan bay inay hanaabayaan iyada la hadlay xaliima la hadlay waxaan ku yiri caruurta halkan bay fadhiyaan inankii weyn halkan buu fadhiyaa lacagtii waa si maxay ninkaas leedo u dhacay maxay inankii halkan buu fadhiyaa waxna uma hayo maxaan sameynaa hay tan waxa igu tiri inantaydii marka sharciga hesho ayay Khalid ku kaxaynaysaa sadana ha u sheegin bay ku tiri sadana ha u sheegin marka iyo sharciga hesho inantaydu Khalid bay kaxaynaysaa ayay igu tiri saasay igu tiri tan way baan ku yiri na miskiin badan lagu dhacay inaad iska aamus wax walba iska aaminaysa adigu marka tan ka yaabay oogayo baa marka maxay markaan waxaan ku yiri markii ka soo wareegtay fadhi baa ka soo wareegtay ma garanaysaa ayaan markii damaan u la hadlan ku yiri xaliimay wadigii lahaa inaan sharciga way heshay wadigii la Khalid bay kaxaynaysaa arrintii ka waran waxay ku tiidantahay waxa uu soo dhacay maxay ahaydeen dhakhtarnimo inta way bugtaa dhakhtar bay gelaysaa cid ma kaxayn karto bay ku tiri asay iga baxday
gabadha kale noo weydi marka iyadana inay arrintaas sax tahay in kale tani waa maafiya tani ma daay gabadha نالي وبحسن يسمى معانيga mise waa muuna qofka ile waa na nagu ما حليم سوري نادر حليم nimanka inaan ka hadlayo waxaan sheegay horta inaad magacaaga ii sheeg مطر الشقوي maya waxaan sheegay ma inanka kale raalli ah igu leh ومحمد داود حليماي maxamed daawud horta inaad adigana in badan baa ku daawaday habeenkii dhawatalana xoogaa baad yara faragelisay marka anigu waan ku garanayay adiga marka am sorry horta dadku inay sacafiyaan baa wanaagsan horta cafis baad iga tahay laakiin waliga qof adigoon arag ama meel jooga arag ama aan waxba arag waxa qof hadii caloosh laga soo rido adoo qofkii kala arag qofka kala dacwada saarin oo dambi ha ku oogin marka muslimkana inaad inay sacafiyaan baa wanaagsan aniga dadkan gabadhan waa walaashay aniguna waxaan hay walaashay dad meel wada degan baan nahay dad wax kale meel kale tagay ma nihin qofkuna markii wixii si hantidiisu ka maqan tahay gabadhuna ninkeeda inay u qaamowdo ama la xagxagto ama la caayo inaad waa wax daruuri ah adiga naagtaada haday wax samayso de aniga gal xitaa waa ku soo caay laha war naagtaadi ba waxaan dhacday waxaan samee waxaas waa hadal iska Soomaali waxaan imka ku hadlaysaa xitaa hadii aniga ay wax kasta la igu sameeyo because aniga iyagoo sidaa u taagan baa maxkamad la soo taagay markaas la igu Saalim Naasir Maxamed Fur oo maxaan ku dhahay maxkamadda horteeda iyagoo saa u taagan calaashaankooda iyo sharaftooda iyo inaan anigu iyaka meel isla soo taago ayaa noloshayda oo dhan u saamgareeyay ana halkii aniga maxkamadda la taagan leeyahay dhaaro oo iska ninka dalqadiisina maqashay oo halkii maxkamadda dhexdeeda iskaga soo fura waxa weeyaan waxaan u sameeyay bila aadamka uu saameeyay uu sharaftayda iyo karaamadayda igaga qaaday ee aniga leeyahay tuuga ayaa tahay aan wax walba u sameeyay calaashaankooda inaan anigu meel iyaka isla soo taago marka dadkuna hadday dad wada dhasheen yihiin ma kala tagay gabadhan yar waa gabadh xanuunsanaysa way og yihiin dhabarkay ka jaban tahay shalay baa dhakhtarkeedii abarmeeshinka waan idiin soo diri doonaa abaydmigeedii waxaa la doonayay shalay in la jiifiyo cusbitaalka la dhigo waxaa la yidhi maskaxdeeda ayaa qayb madow ku jiro iyo halka xangulada dhabarkeeda dambe ayaa madow marka kombiyuutarkii maadaama qalitaan 7 saacadood ay galaysaa waxaana 50-50 weeye gabadha yar inay noolaato iyo maxaan ku dhahay way la joogtaa England dad badan oo ila joogan caaw halkan ila joogin ba halkan jooga xaaladeeda og iyada muuni way ka wada dhareegsantay marka soo sheega maya in adeer hal arrin ka rabna adiga waxa ka rabnaa aan dhamaysto haddaan ku iri gabadhii ka soo qaad hadalkeeda markaan tixgeliyo haddaaban kelmadan ku iri oo aan idhiba gabadha yari way bugtaa waan runtay waana sakaraad waana gabadh cusbitaal sugaysa bariisa dabana la qalay inay dhimatana u dhow inay noolaatana u dhow qof 50-50 ana qof kale ma oran karo qofkaas ku xanay laakiin qofku markuu wax walba kuugu soo bandhigo maalin kasta hadalku weydiiyo oo maalin kasta adigoo iska biisiya adigoo iska dhibaataysan adigoo iska rafaadaya oo wadankii ku cusub oo qurbo ilmo yar ka laalaasanayo baka ubadkaygu way yaryariin mujo weeyaan Hargeysa joogan awoodaan ugu tagaan way marka waxa weeyaan qofku inuu aniga waxaan u arkayaa sidaas oo kale qofku inuu aragsi iyo tiiqtiiqsi iga dayayo laakiin munay de fiimaada doonaysa fiidiyodeeda inaan ku soo dubo dawiiga soo socda ama bishan soo socda la qalaya haddii aan wax su'aasha ka jawaab lagu weydiiyay hal mar iigu san mar gabadha anaa su'aal weydiinaya ina adeer gabadhan lacagihii iyo barnaamijkii kale waa ka soo tagnay adiga mawduucan ah in gabadhaadu wiilkeeda ay kaxaynayso gabadhaan ma ku qancisay oo heshiis ma ku wada gasheen maya gabadhan waa gabadh bugto cidba lama heshiin karto gabadhan waaba gabadh yaro bugta cidba ma soo kaaga sheekaynayaba qofka noocan ah adigu sheekaynta faraha badanna ma rabno inaad kaliya gabadhan lacagihii iyo wixii ninkaas loo diray waa isku waafaqsantihiin waa ogolaanay ereygan ah wiilkaaga gabadhayda ku kaxaynaysa sharciga hadday qaadato ma u ballan qaaday macnihi maya waa been intaas wax kama jiraan maya okay ورداهر وير ما قاطع ان شاء الله كيف خالد يرسك حسنه ولكن خالد ما مقشاه ومقالد ارتقف ده naaqani way kugu dhacday kani way kugu dhacday aaminaada badanna waxaas oo kale laga qaaday ma garanay adiga malaan nin yaro maskiina markii hore laga dhigi rabay waa la soo heliyaa anana arrinta ka shaqeeya Saalim ana daba galaya qurbaha in badan ku maqnaa marka de waxa ma fahansanayba way kugu dhacday carruur yaro موضوع iska dhamaaday insha Allah daahirow si fiican baad u gashay insha Allah qofkuna haduu qof dulmay wax ka maqan yihiin
waxa ogaataan qofka madluumka iyo ilaahay cidna ma dhaxayso wixii way helaysaa gabadha miskiinta ah kulli wax ka muuqata cadnimo fiican ba ka muuqata daacada wixii insha Allah biidmillah ilaahay kama luminayo way heli doontaa biidmillah tabaaraka wa taala sababta xaqiisa uu ku bixiyo niyad fiican wanaag uu ku bixiyo ma waayo xaqiisa ma waayo marka taas waa ta kale دايرو ساعة شيء توي وحنا واسك قرال دي لعقت وقرال هذا تري لعقت ورقدي كنت درتنا والله هيا حليمة كنت درتي وإنك كنت درتنا والله هيا مرك حليمة وحلا ربعون ما دا وإنك عرور هيصو وأنا أي قبيل إني محكمة دا يتيم كقصرياش كعاوسو إنك سيد له لها ما دام عرور هيصو وده إنك دي وها ما أهانشري marka in maxkamadda ka caawiyo sidii ninka loo heli lahaa xuquuqda ka maqan dhowr afarta konton lacag yar ma waliba agoon baare hargeysa joogta marka in xil iska saaro xalimo ku leedo xuquuqda maartay maadaama ay mas'uuliyadda qaaday oo lacagta loo dhiibay inay xuquuq gaar iska saarto lacag yar maaha agoon baale marka waxa weeye xalimo waxaan kula tan lahaa inay maxkamadda iyo daahir ka caawiso sidii ninka loo heli lahaa waana mahadsantiin insha Allah شكرا والله سنتي جزاك الله خير مقالد مودقل دايرو هدان soo baarnay ninkan taraagla weeyaan Ameerika jooga aha qaalid mudgal hal mar mudgal taraagla waaye Ameerika waa lagu xiray rekoorkiisa oo ku soo diray daayro waad aragtaan malaynaya hadaad eegto WhatsApp-kaada meeshan ku soo diray green card-kiisa markii ugu dambeysay wuxuu ka qaatay New York oo ka qaatay laysanka DMV dan kala soo baxnay rekoorkiisa Naasir ninka la yiraahdo wahel ma magaciisa Moriyalo laakiin ha waa taragle وانا سدح باسبور وتا يمني جيبوتي iyo Ameerika iska dhiibay saddexda marka waa nin maxaa la yiraahdaa taraagla weeye waa la xiray mar waxa la judge gareeyay inuu caruur kufsado wax sidaas waad arki kartaa rekorka ninka taraagla weeye Soomaalidu way ogtahay dad badan uu dhacay gabadha hana la raadiso ayaduna dhibana weeye Xaliimo waa iska muuqataa oo maqaalidna waxaan dhihi lahaa aniga fikirkayga oo maqaaliday Xaliimo wax ma hayso kulli way idin ku dhacday sidii wax lagu raadi lahaa waa dad walaalahana leeyahay iyadoo la saflagaadeyn sidii aan wax wada raadino sidii aan ku heli lahayn ilaa gabadha Djibouti daayira nooga gacan roon halka ha aado oo Djibouti guriga ku yaala hal soo ogaad inuu leeyahay oo la xaraashi karay in kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أمها سنتاي ظاهرو اسكو درسنه مسألة waa dhageystay adigana si fiican u weydiisay waa ma wax yar si aniga markaa dhageystay okay ظاهرو gabadhan oo Khalid la yiraaho hees ka naqato hadda ka hornima wuxuu sameeyay aw naaf wuxuu ka iibsaday nin oo iska reer baadiya diinta ahkaam badan oo waxa ku jirto qofka reer baadiyaha suuqa qiimiga ka jira iyo wixii aan ogeyn oo kala xatay in xoolaha laga qaato in dib loogu celiyo waay sababtoo ah beecaan hayna laga sii karaa waa la qaldi karaa gabadhan hadda hadaladeeda waxa ka muuqata qof iska daacada magaalada iyo waxyaabaha si dadku la isku daba maro iyo mujaamalooyinka aan fahamsanayn gabadhaas aamintay markay aamintayna arrimaheedii lacagta isaga dhiibtay aaminaad gabadhaana ay u dhiibtay ninkaas kale oo iidan ilmaha ka dhalay gabadhaana ay dhibaatadii kadib la kulantay meel wax ka bilowdan aysan fahamsanayn oo systemkii dawliga iyo qaabkii wax u raadsatay iyo qof kale oo garab istaagtana weysay arrimaheedu saasay u egyihiin daahirow markaan fiirinay gabadhan marka waa hadalkeeda Khalid Khalid sheegaya qof iska daacada kadibna lacagta markay weysay hadaa dagaalanta ambaad meelahan ka dacweyso sababta ay gabadhan kale maxkamadda isku la tagto isku bari yeeshay qof aad ugu wax u fahamsan iyo systemkay gabadhaas kale u agtaa laakiin gabadhan gabar iska maskiin oo wax fahamsanayn in gabadhan qof la shaqeeyaysa oo arrimahaas inay iyadu ana kaala shaqeynayo waxay isdhaahday hadaa kaliga gabadhan aad dacweysid qof maxkamadda kula taga iyo qof waxaan kaala shaqeeya ninka ma taqaanid waxaaga ama ka dhumaan qof isiri u muuqata oo iidaba garab iyo ka raadsaday iyo inay barnaamijka calaashan kala shaqeysan dhanka maxkamadaha marka daahirow gabadhaas waxa laga rabaa oo waajib ku ah oo ninku ilmaha wadaadkeedu hore u ahay oo ilmuhu hayso systemka dhan gabadhaas idaa fahamsan ninkina taqaana waxa waajib ku noqonaya laba mid lacagta inay raadiso ninka ka keento iyo inay adiga kaala shaqeyso ninkaas arrimihiisa iyo meeshii lagu heli lahaa iyo wax badan si gabadhan lacagteedu loogu soo celi lahaa bas waa ka fadhiyo
hawshaas meel fuulaysa ninkaas lacagta waa laga helaya adigu laakiin qayb hoo bixiya waa laga soo helaya ninkaas maan haddii laga soo heli waayna kiisi ku noqonaysa daahiro warta aniga maalintii dhaweyta waxay ugu tagtay Djibouti aan ugu diray waxay ahayd aniga markuu leeyahay ninku gabadh anigu horta ninka iyo aniga waligayna lama hadlin lamana xiriiro ilamana soo xiriiro ubadkiisana ma soo salaamo 10 sano ka hor baa igu dambeysay ninka ay ka hadlaysa horta ninkan uu ka hadlayo leeyahay Xaliima hadda waa been wallahi weeyaan ninka aniga waqtigii ugu dambeysay telefoonadayda waa kan qof kaste waa la arki karaa waqtigii aniga igu dambeysay long time bay ahayd one day buu soo hadlay 2021 habeenku soo hadlay lambarkii uu ka soo hadlay iyo meeshuu ka soo hadlay labadoodaba waa la sheergareeyay 10 sano kadib ayuu ninkaas soo hadlay markaan Turkiga joogay maalintan halkan soo baxayay bay ahayd waxaan ku ori ummadda xaqeedii iyakana waan u sheegay war waxa ummadda xaqeedii anigu haddaan ku cafiyay oo aan iska ka cafiyay oo ubadkaaga dayacday ummadda xaqeedii ma iska soo celin mise waa maya wuxuu igu yiri ummadda xaqeedii waan keenay aniga maalintaas hadalkiisana igu dambeysay iguna horeysay iyakana waan u sheegay ninkaas maanta anigu because qofku hadii uu qofka aw qiyaamada ama aan saalmi qiyaamo kula jiro no Xaliima su'aala ku weydiina adiga marka no Xaliima maya hadalkaaga iska dhaaf su'aala ku weydiina ninkan marka gabadhan lacagta aad ka siinaysay ma ku qabiyo mise waa kala tagteen maya ninkaas anagu waqtigaas waan isqabnay telefoon de ninkaas uu saa uu imika ku maqan yahay buu ku maqnaa laakiin meherku wuu igu xidhnaa laakiin lacagta imika halkan aniga igu iska daa in adeer hadalka kale markan lacagta ay u dhiibaysay ninkaaga ma hay mise ma ahayn bay marka waan is wada joogo okay haddaba gabadhan lacagteedii daahiraad kala shaqeynay sidii ninkaas loo heli lahay waxa lacagta ku maqnaa hadalkan waa khalad aad leedahay kaligeed kama maqnaa gabadh kale jirto lacagta nagula jirtaa oo ana iga maqnaa haddaba waxay doontaa ha noqdo adiga ninkaaga ninku ma ahay mise ma ahayn maya aniga ma maya daahirow lacagtaas gabadhan ha kaala shaqeyso haddii aysan kaala shaqeyna iidaa laga rabaa aniga dhegeyso waxaan idin kala shaqey karaa aniga ka shaqey qasab maaha inaan anigu ninkan doono ninkan anigu imaka inta ay nimanku sheegayaan ma samayn karo waxba la soo arkay inuu taraagle leeyahay inuu halka joogo waxaan anigu ma samayn karo ay dadkanu samaynayaan iyadoo kale aan la mid ahay waxa weeye ninkan anigu hal guri baa la ii sheegay halkii gurigeena muunad waxaan ku dhintay tag oo soo arag iyada soo arag anigu intii wixii Afrika ah ee ninka laga heli kara ama ehelkiisa ama Djibouti waan samayn karaa laakiin oo anigu badantayda ku jirto anigu adduunkayga maqan $780,000 baa iga maqan ma fahantay marka waxa weeyaan waan samayn karaa anigu inta hadii wax la su'aalo waan ka hadli karaa ma aniga sadax way igama gal aniga anu taydan ka hadlaya anigu gabadha kale anigu wax way igama galin haday soo hadlaysi hadii dacwoonaysa jirtaa laakiin anu inta carruurtayda agoonta leey ma ka hadlay anigu bas soo ma oran daahir denika ana baadi doonay daahir been sugeeyna hadana ninka ana baadi gooba ninka Soomaali ku hadlaa Soomaali iyo Carabi labadaba uu ku hadlaa Carabi ma qala Soomaali qana uu ku wada hadlaa مشكلة الصيحة مركز شاكن قلنا أنا تبقيت كان قلنا الصيحة. كيف حالك دار علي سو؟ الحمد لله.